بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود لبتي وسلامتي بالكستو عاد دونك كجوكتين وا أنا مش شيء مقعد ذيك الشيء يصير وأوجه الشيء يصير وهو باتا كسر مخال عصب مخال كمان وحن أول تلقى يعني ما دام أسبوع كم خنا يوتيوب وحسنا أسبوع عسدتك سحبته ويكون حسن والبك خصوصي أنا بدي خصوصي كذا هذا جيبه سكستي أنتم وحروا ما إن شاء الله أنا أدين صوب بندقوا مقال ما أهم عضواي أن دوي سنة كي لبكون توني أفر مركان جوجي تمام سعودية عربية مركب مقال كي محمود خالد وجرا عض كي أمريكا حربات مقال أهان إن أمريكا أو سماه سيدا أمريكا ورك وتوين عمل برنامج هرا لكن كان واقع قد ساكن الحكساب سيء عيارها أم بلون أمريكا عدك كمبيوتر وكشدية لكن أنا حاسمنا بلاي باك بلاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal dhamaantiin meel kastoo adduunka ka joogteen oo mar kale iyo barnaamijkeeni faaqidaada ciyaaraha boqolaal geel oo maanta la guddoonsiiyay labiska ay kaga qayb gali lahaayeen ciyaaraha UEFA Champions League ee dhici doona 2 daqiiqad kadib. gudoomiyaha FIFA oo maanta la seexiyay isbitaalka Digfer isagoo biyo roob si qaldan u qabay. Cristiano Ronaldo oo maanta oohinta ka dhamaatay kadib markii kartoon moos uu afgooy ka soo iibsaday looga dhacay tuulo ku taal bidaarta ninka dollarka ku sawiran. Ronaldinho oo lagu arkay si dhumaaleys isagoo uga shaqaysanaya maqaayad ka mid ah maqaayadaha ku yaala Muqdisho waraysi xiiso leh ayaan idinka haynaa. gabar yar oo hal sano jir ah ayaa maanta ciiji ku dili gaartay Messi oo si sharci dar ah uga kaluumaysanaya xeebta Lido. boqolaal geel oo maanta la guddoonsiiyay labiska ay kaga qayb gali lahaayeen ciyaaraha UEFA Champions League inkastoo ay haysaneen waqti ku filan hase yeeshee la siiyay fursad kooban. xulka geela ayaa furaya ciyaaraha ugu horeeyay UEFA Champions League waxayna ula dheeli doonaan xulka Masaya People. ciyaarahaasi oo ka dhacay garoonka ka samaysan dhoobo iyo joodari wuxuuna ku dhex yaalaa biyaha badda hoostooda. dhismihiisa waxay qaadatay in ka badan 4 daqiiqo iyo 6 bilood. ciyaaraha ayaa la filayaa inay bilaaban doonto 2 daqiiqo kadib. geelasha ayaa tababar qaadanayay muddo 50 sekin ah iyagoo sheegay inay ku guuleysan doonaan koobka UEFA Champions League. xoolo far badan oo taageer u ah xulka geela ayaa soo buux dhaafiyay garoonka ciyaarta ka dhacayso halkaas oo lagu dhaariyay goolhayaha xulka geela inuu si daacad ah u kontrooli doono kubadda. gudoomiyaha FIFA oo maanta la seexiyay isbitaalka Digfer isagoo biyo roob si qaldan u cabay. taasi ayaa u sabab ahayd sabuul qoraxda lagu dubayay oo ka cunayay meel u dhow X control balcad. gudoomiyaha FIFA ayaa durbadii baqanfacay kadibna cabay biyo roob oo loogu talgalay dadka cuqdada qaba hase yeeshee gudoomiyaha FIFA oo markiiba wadnaha istaagay. ambulance gaari dameer ah oo aad u dheereeya soconaya saacadiiba 1 sentimitir ayaa lagu kaxeeyay oo si degdeg ah u geeyay isbitaalka Digfer. ilaa haatan wax war ah ka soo baxay ma jirto xubnaha kale ee FIFA laakiin waxa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka FIFA isagoo sheegay in wax saameyn ah ay ku yeelan doonaan ciyaaraha UEFA Champions League. gudoomiyaha FIFA ayaa laga yaabaa daqiiqad kadib in khaliin lagu sameeyo wadnaha isla markaana loo xiro wadno kaneeco si ku meel gaar ah. Cristiano Ronaldo oo maanta oohinta ka dhamaatay kadib markii kartoon moos uu afgooy ka soo iibsaday looga dhacay tuulo ku taal bidaarta ninka dollarka ku sawiran. Cristiano Ronaldo ayaa sheegay maalmihii uu dambeeyay inuu safar ku tagay afgooy isagoo ka soo lugayay wadanka Faransiiska muddo 3 daqiiqo ah ayuu u lugeynayay Faransa ilaa afgooy. ciyaaryahanka aragga xun leh ee khadka telefoonka kala xiriirnay isagoo noo sheegay in kartoon moos uu afgooy ka iibsaday looga dhacay tuulo ku taal bidaarta ninka dollarka ku sawiran. nasiib daro tuugadaas ma sheegi karo dadka yihiin buu yiri laakiin mid baan ka garanayaa haddaan sheegan waxaan ka baqayaa inuu khanjuufa igu dulo buu yiri Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in xaaskiisa ay ku walacday moos ku beeran afgooye. xaaskiisa ayaa iyadana sidoo kale naxdin dartiisa la hurdeysa muddo tiradeeda xitaa calculator-ka uu ku wareeray. Ronaldinho oo lagu arkay si dhumaaleys isagoo uga shaqeeya maqaayad ka mid ah maqaayadaha ku yaala Muqdisho. xaaskii hore ee Wayne Rooney ayaa ii soo dirtay sawirka Ronaldinho oo la xajuuno dhuxul ku raran oo sii gelinaya maqaayad ku taal suuqa Bakaaraha. maqaayadaas ayaa asalkeeda iska leh ninka dhisay garoonka New Camp. gabartan ka shiftay Ronaldinho ayaa weydiiyay siday ku ogaatay iyada waxay ii sheegtay inay aragtay ilkaha Ronaldinho oo lagu gadgaday farmashi u dhow maqaayadaasi. isla markii aanu halkaas sawir selfie iskaga qaadaya ayaan meel dheer ka arkay Ronaldinho oo dhuxul sii gelinaya maqaayada Baytiri isagoo camaamad wajiga iskaga qariyay. nasiib daro dabeel baa socotay camaamadii baa ka dhacday anigana sidaa baan ku aqoonsaday Baytiri garoobtan gafuurka xun ee Wayne Rooney uu soo furay. gabar yar oo hal sano jir ah ayaa maanta ciiji ku dili gaartay Messi oo si sharci daro ah uga kaluumaysanaya xeebta Lido. gabartaas ayaa ka xiinaysay maraakiibta dagaalka ayaa waxay aaladda satellite-ka ka aragtay Messi oo si sharci dar ah uga kaluumaysanayo xeebta Lido isagoo indha shareer soo xirtay si loo aqoonsanin. hase yeeshee gabartan ayaa xifdisay shiirka Messi sidoo kale gabarta halka sano jirta ah ayaa ii sheegtay mar aan wareysanayay
in uu kalluun u soo diray SMS kalluunkaasoo sheegay in xeebtan ay ahayn xeebta Argentina ayna tahay xeebta Soomaaliya ayna rabaan xornimo inay ku dabaashaan wax bay ka codsadeen gaalka wajiga sanbabka leh meel laga saar buu yiri kalluunka isla markii gabarta halka sana jirta waxay ciiji dhunta ka qabatay Messi iyagoo isu jiraan ilaa 10 kilomitir ciiji waxay qabatay tan ugu xumeed ee wifi ciiji loo yaqaano mid ka mid ah qaraabada gabartaasi halka sana jirta ayaa damintay Messi oo asalkiisaba Muqdisho damaanad ku joogay sidoo kale Neymar ayaa sheegay in gabartaasi waxay sameysay ahaa wax lagu farxo barnaamijkeeni faaqadada ciyaaraha halkaas ayuu inoogu dhan yahay halkaad kala socoteen waa TV-ga Kaftan iyo Baashaal kulanti dambe oo xiiso leh maxaa sugaysiinahay dhiga farta gashta warbaxa intaas waxay aad barnaamijkii faaqadada ciyaaraha aan ka kaftamay hadaa qusush waa qusush hadaa quslina maba quslinba maxaa qusush cid ku dhaasmi jirto yani waxba jabiga idin bedelay wala baahay marmar in jabiga la bedesho oo maaragtay wax lagu barto wax ka gedsan aan iimaadin sida daraadeed waa kuma sita daawashada muuqaalka daawatay sidoo kale waxaan rabaa inaan idin sheego dad badan way u weydiiyeen filimkii ama television ee burcad badeed ku saabsanaa ee Pascal la dhahay yani YouTube laga saaray intee ka daawan karna waxa si dhahay haddii aad u baahatid filimka Pascal inaad daawatid waxa ka daawan kartaa Netflix ka daaw Netflix la soo geliyay horta ani waxa arki doontaa 3 second bas wax badan ma bahaba laakiin filimkaas qisadiisa ma sha Allah aad ay u sareysaa waa true story waa qiso cajiib ah waa kuma tada daawashada muuqaalka daawata dhammaan insha Allah waxaan rajayna qari caafimaad bash barwaaq farxad iyo reer Ramadan cusub aan ku darso waxaana balanaa muuqaalka xiga waqtigaaga ka faa'iideyso